madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa u socdaalay Garowe oo tagay waana booqashadii saddexaad ee uu ku tago caasimadda dowlad goboleedyada 100 maalmood ka hor markii uu la wareegay xilka madaxtinimo ee fiila Soomaaliya ama uu ku guuleystay doorashadii dhacday bishii May 15keedii dhammaan dhinacyada siyaasadda ee Soomaaliya muddooyinkii ugu dambeeyay waxa ay si weyn u lafagurayeen waxqabadka madaxweynaha ee 100 maalmood qodobadiisii hortabinta lahaa ee uu sheegay iyo waxa ilaa hadda ka hirgalay taasi kama hadlayno waqtigan madaxweynuhu waxa uu aaday Puntland halkan waa goob muhiim ah marka laga hadlayo inuu soo baxo 15kii May oo uu noqdo madaxweynaha Puntland Siciid Dani oo ka mid ahaa musharaxiintii tartamayay ayaa baritaaray sida la aaminsan yahay codadkiisana ku wareejiyay dharaartii doorashada laakiin codadkaasi uma goyn Siciid Dani wax weyn oo miisaanka siyaasadeed ah marka laga reebo in Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ay hayeen Siciid Dani oo karkaarka siyaasadeed weydaariyo Dani waxa uu raadiyay ra'iisul wasaaraha Soomaaliya laakiin hunga siyaasadeed ayuu kala laabtay Xasan Sheekh oo u quusgooyay damaciisina waxa uu hadda joogaa Garowe wadahadallo siyaasadeed oo xasaasi ayaa labada dhinac dhex mari doona ila wargalo oo ka tirsan fiila Garowe ayaa hoosta ka xariiqaya in Siciid Dani uu diiday inuu maalmo ka hor soo gaaro Garowe ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Xamse Cabdi Barre iyadoo sababta ugu weyn ee Siciid Dani iyo kooxdiisa siyaasadeed ay talaabadan u qaadeen lagu fasiray inay tahay ra'iisul wasaaraha ay aaminsan yihiin uusan gorgortan ka geli karin arrimaha waaweyn ee ay doonayaan ila wareedyo ka tirsan dhinaca Garowe waxa ay tabinayaan in Puntland ay doonayso in wada hadalkan xoogga lagu saaro qodobada hortabinta leh oo ay ka mid yihiin kuwa inta badan eedaha ay ka tirsato waa mashaariicda horumarineed oo Puntland inta badan ay sheegtay in 5 sano ee la soo dhaafay si weyn loogu gacan bidixeeyay oo aysan helin dood kale waa mid ay la wadaagto Soomaalida oo dhan waana qodobada dastuuriga ah iyo dhamaystirka dastuurka Siciid Dani dhawaan waxa uu jeediyay hadal u muuqday inuu fariin u yahay loolankiisa siyaasadeed waxaana uu sheegay in loo baahan yahay dhamaystirka dastuurka uu ahaado waxa ugu horeeya ee laga shaqeeyo laakiin dawladda federaalka ee Soomaaliya gaar ahaan madaxtooyadu sida ay qodobadan u wajihi doonto ayaa noqonaya kuwa saameyn badan reebi doona sida ay qabaan dad badan madaxweyne Xasan Sheekh safarkan waxa uu yahay inuu isaga dejiyo lahana siyaasadeed oo ku soo wajahan oo kii ugu dambeeyay ee dhacayna uu ahaa muddo kororsigii uu sameystay madaxweynaha Jubbaland taasoo Siciid Dani iyo Xasan Sheekh ay isla soo qaadi doonaan hanaanka maarayntooda iyo sida ay Puntland mowqifaan arrintaasi u aqbasho ayaa Xasan u noqon doona kuwa laba dhinacba jawaab uga ah marka koobaad weeyaane haddii Puntland ay aqbasho muddo kororsiga Axmed Madoobe iyo in hawlaheeda ay u gaar tahay Xasan waa u dilan siyaasadeed dhinac kalena waxa kale oo uu ku khasbanaan doonaa inuu aqbalo muddo kororsiga Axmed Madoobe haddii taasi ay hirgashana dhammaan muddo kororsiyada dowlad goboleedyada qaarkood weli ka soo foogan ayay ku khasban tahay fiila Soomaaliya inay si aan ku talagal ahayn u liqdo ama u aqbasho dhinac kale oo eegaya wada hadallada Garowe ayaa leh madaxweyne Xasan Sheekh halkaasi waxa uu tagayaa inuu ka helo sawir muujinaya inuu dhammaan gacanta ku hayo dowlad goboleedyada gaar ahaan hooyada federaalka ee Puntland oo uusan wanaagsanayn sida la tabinayo xiriirka kala dhaxeeya sidaas oo kale in Puntland ay ka xiriir furato fiila Soomaaliya oo ay gaar u dhaqaaqdana waxa la aaminsan yahay in dhinaca beesha caalamka ay miisaan culus oo xagga siyaasadda ah ay yeelan doonto madaxweyne Xasan marka uu safarkan ka soo laabto waxa la aaminsan yahay inuu isku soo mari doono laba dal mid ka mid ah waxa uu kaga qayb galayaa kulanka jamciyadda qurumaha ka dhaxaysa mid kalena waa mid dawladda federaalka ee Soomaaliya ay taageero dhaqaale ugu raadsan doonto wadamada khaliijka iyadoo dhammaan indhaha lagu eegi doono hanaanka maaraynta safarada laba safar oo madaxweyne Xasan uu hore ugu tagay Galmudug iyo Dhuusamareeb ka hor magacaabidda ra'iisul wasaaraha iyo dhismaha golihiisa wasiirada midkoodna wixii uu soo ballan qaaday ma fulin gaar ahaan marka laga hadlayo inaan dowlad goboleedyada colaad siyaasadeed lala gelin